xisbiga mucaaradka Waddani ayaa maalintii labaad soo bandhigay xuduudda taageero uu ku leeyahay degmada Garadag iyo deegaanada hoos yimaada waxaana subaxnimadii hore saaka lagu arkayay magaalooyinka kala duwan ee degmada Garadag taageerayaal ku labisan calanka muuqa dheer ee Waddani kuwaas oo ku dhawaaqaya kulmiyo baybay waxaana taageerayaashu isugu soo biyay shubtan geedka nabadda ee degmada Garadag waxaana ugu horreyn la hadlay taageerayaasha xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale ka tirsan xisbiga mucaaradka Waddani waxaynu marka waa askari iyo diblomaasi cid aynu dooranayna musharax xisbiga Waddani waa askarina sida wax loo daweeyo ma yaqaano xisbiga kulmiye waa askari ninka ka sharaxani askarina sida wax loo daweeyo ma yaqaano sida wax loo dilo buu yaqaanaa diblomaasi taagamaan odeeriyo codkaaba waxaan u dirayaa loolkan baa inaga dhaxaya siyaasadda axsaabta qaranka labada xusbiya kale waxayna ka dhaxayo loolka siyaasadeed ayna kama dhaxayso xiyaaladu ha joogto yaraayaaloorteeda waxa taagan dhalinyaro isbedel u baahan mustaqbal u baahan anigu waxaan ku faanayaa dhalinyarta isbedelka u baahan ee xusbiga Waddani la garab taagan hiiliyo hool kaararka yaa la idinka iibsanay adkaysta waxay la qaban dhalinyarta Jamhuuriyadda Soomaaliland halkan dadka taagan waxay nooga karnaa boqolkiiba 60 waa dhalinyaro isbedel doona oo aqoontooda wax ku bedelaya waxa isaguna hadalka halka ka sii qaaday gudoomiyaha xisbiga Cabdisahal Jaamac Xasan xaflada la horo kala oo xisbiga Waddani oo ku muujinayo xuduudiisa taageere ee dalka uu ku leeyahay taasoo dhammaan taageerayaashii ay filayay hal mar ay xisbiga Waddani ku wada wareegeen waa geedkii 7 sano ka hor kulmiye lagu caleema saaray dhanka kale waxa uu xisbigu saaka xuduudiisa taageero ku muujiyay faraguul iyo Sincana oo ka tirsan degmada Garadag Cabdi Fataax Cabdilaahi Bayaan telefishinka caalamiga ah degmada Garadag